السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي حبين وناكسن كنا سودوادا وربحنا كوبان أكاينو كمال دارجي أو أيهم با مالنتا كسي تنبيسبه كسي حماسة بنانا يا صاحب يال وحان صاحب يال ايغو دونا اتلاتي مدريد او لو ديداي تيكت كبادان صدح بقول صدني أفر كوبكا خميستا أي كوبالنسان يهين كوحدا ريال مدريد كرونكا سانتياغو برنابيو kaas oo Real Madrid ay cagsadhay kooxda ay dariska yihiin ee Atletico ayadoo u ogolaatay 334 tigid inay u soo goostaan garoonka ay ku ciyaarto kooxda Los Blancos ayaan saaxiibayaal eegi doonaa waxaan kaloo eegi doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona oo xiriir la sameysay sidii ay u soo qaadan lahayd laacibka ugu ciyaara Real Madrid garabka لاعبka lagu magacaabo Marcos Asensio oo waqti badan ay ku doodiyeen in ay ugu fiicnaan lahaa kubadooda laacibka reer Spain marka saaxiibayaal markaas ayaan eegi doonaa markaan waxay ka shan tahay horyaalka liga haddii aad tahay saaxiibka cusub barteenan fadlan subscribe like share comment kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa waxay sameysay wax dhag iyo ilbadalaaciyay kooxda ay dariskiin Atletico Madrid maadaama ognahay in Atletico Madrid iyo Real Madrid ay balansan yihiin maalinka Khamiista ah waa Khamiis soo socota koobku waa koob daray waa kulan aad u adag marka kooxda lagu magacaabo Atletico Madrid waxay codsatay 4,000 iyo qaaba tigid ah waxayna rabaan in kulankan uu noqdo kulan taageerayaal badan oo Atletico Madrid ah ay ka soo qayb galaan laakiin Real Madrid ayaa taas waxay saadhay cag waxayna tiri maya oo ma yeelino in Atletico Madrid tigidka inta dheer ay soo goostaan waxaan u qoontaysay kooxda Real Madrid kooxda ay macnaha ay xulfad yihiin ama ay xifaaltamaan ee Atletico Madrid inay soo qaadan karto tigid gaaraya 334 waxa ku jira maamulkii waxa ku jira wax walba shaqaalihii waxa ku jira taageerayaashii kulli 334 waxay ugu talagashay Real Madrid inaysan kooxdan lagu magacaabo Atletico aysan awood ama taageerayaal muran badan maadaama ognahay in Atletico Madrid ciyaaryahaneeda tababaraheeda taageerayaasheeda ay yihiin dad aad u dhib badan inaysan garoonka aysan buuq iyo dhibaato iyo qarac la soo galin laakiin Atletico Madrid oo waxay rabtaa inay garoonkan ay mudahamaasad gooniya oo ay la chance garayso ay Real Madrid Real taas ma ogola oo waxay rabtaa inay taageerayaal iyo cod iyo ugu guulaysato kooxda lagu magacaabo Atletico Madrid waxaan ognahay in koobka daray lagu magacaabo uusan lahayn qoondooyin macnaha tigidka labada kooxood ee dheelaya sida Champions League horyaalada kale horyaalka Premier League badankood waxay leeyihiin qoondooyin u goynaya in kooxdaas ay qaadan